dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jawaab adag ka bixisay codsiga dowladda Kenya ay u dirtay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ taasi oo ay ku codsanaysay in dib loo dhigo kiiska badda ee labada dal. dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan saydhay codsiga Kenya ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ uga dalbatay in la hakiyo dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. xeer ilaaliyaha guud ee Kenya Paul Kiraye ayaa warqad rasmi ah oo uu u diray waxa uu codsiga Kenya cudurdaar uga dhigay in Kenya ay doonayso in ay qorto kooxo cusub oo ah qareeno difaaca sidaas darteedna ay u baahan tahay in waqti dheer la siiyo. si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa diiday codsiga Kenya waxaana la filayaa in maalinta berrita ah oo ku beegan 5 bisha 9 2019 ay warqad rasmi ah u dirto dowladda Soomaaliya maxkamadda ICJ kuna wargeliso go'aankeeda iyo in ay diyaar u tahay in kiiska uu sii socdo. Soomaaliya ayaa ku doodi doonta in haddii Kenya ay doonayso in ay qareeno cusub qorato ay haysatay in ka badan 1 sano oo ay ku samaysan kartay wax kasta oo ay rabto ayna ku qoran kartay qareeno walba oo ay u baahan tahay. sidaas darteedna cudurdaarkaas aan imika la aqbali karin. dhageysiga dacwadda ayaa waxaa la qorsheeyay in uu dhaco maalmaha Isniinta ilaa Jimcaha ee 9 ilaa 13 bisha Sebtembar. go'aan kasta oo dib loogu dhigayo kiiska ama lagu joojinayo waa in ay isku raacaan labada dhinac ee ay maxkamaddu khusayso. haddii ay sidaasi dhici weyso oo hal dhinac kaliya uu dalbado sida ay samaysay Kenya waxaa go'aan ka gaari doona maxkamadda ICJ. dowladda Kenya ayaa in badan isku dayaysa sidii ay u hakin lahayd kiiskan oo ay ka dhiman tahay 5 maalmood oo kaliya xilligii la dhageysan lahaa lagana go'aan gaari lahaa. taas beddelkeeda Soomaaliya ayaa rabta in kiiska sida uu yahay loo galo aanan cidna loo joojin. xalay ayay ahayd markii dowladda Kenya ay guddiga golaha midowga Afrika horgeysay in loo codeeyo kiiska Soomaaliya iyo Kenya in la joojiyo iyo in ay socoto oo maxkamaddu ay ka go'aan gaadho iyada oo halkaasi ay ku fashilantay Kenya Afrikana ay u codeysay Soomaaliya. xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo ka qayb galay shirweynaha ururka guddiga doorashooyinka adduunka oo sanadkan ka dhacay gudaha magaalada Bangalore ee dalka Hindiya ayaa loo doortay xubin ka mid ah guddiga fulinta ee ururkaasi oo ay ku jiraan 106 dal iyo 140 hay-adood. war ka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa lagu faahfaahiyey arrintaasi iyo muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay ka mid noqoshada guddigan oo ah guddi heer caalami ah isla markaasina ay ku midaysan yihiin wadamo ka badan 106 iyo 140 hay-adood ayay Soomaaliya heshay xubin guddi fulin ah oo Afrika aysan horay ugu jirin. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu ka mid yahay ururo caalami ah iyo kuwa goboleed oo ay ku bahoobeen ururada doorashooyinka kuwaasi oo ay ka mid yihiin ururada guddiyada doorashooyinka Afrika kan Carabta iyo midka adduunka. ujeedooyinka ka mid noqoshada ururadan waxaa ugu muhiimsan in guddiga doorashooyinka Soomaaliyeed uu helo khibrad iyo aqoon ku filan oo uu hawshiisa ku qabto iyada oo ururkani ay yihiin madal aqoon wadaaga iyo mid khibrad kororsi. sidoo kale wuxuu guddiga arrinkan uga gol leeyahay in codka Soomaaliyeed uu gaarsiiyo daafaha caalamka hay-adaha dowladeed ee Soomaaliyana ay noqdaan kuwa ka dhex muuqda ururadaasi iyo shirkaas caalamiga ah. haddaba iyagoo ka duulaya ujeedooyinkaas kor ku xusan ayuu guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo ay hogaaminayso guddoomiyaha guddiga Marwo Xaliima Ismaaciil Ibraahim waxay shirka hay-adaha doorashooyinka adduunka Association of World Election Bodies oo xaruntoodu tahay dalka Kuuriyada Koonfureed uga qayb galeen Bangalore Hindiya. shirkan oo socon doona inta u dhaxaysa 2 iyo September 2019 waxaa kulamo ku yeelan doona golaha guud iyo guddiyada fulinta. sidoo kale waxaa looga hadlay arrimaha adeegsiga baraha bulshada ee doorashooyinka caqabadaha iyo fursadaha. waxaa halkaasi bandhig ka soo jeedisay guddoomiye Xaliimo oo muujisay sida Soomaaliya ay uga go'an tahay doorasho cod iyo qof ah dhammaadka sanadkan 2020 isla markaasina soo bandhigtay fursadaha baraha bulshada ee internetka ay ku yeelan doonaan doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya. intii uu shirku socday waxaa Soomaaliya loo doortay in ay noqoto xubin ka mid ah guddiga fulinta ee ururka hay-adaha doorashooyinka adduunka.
arrinkan oo ah mid lagu farxo ayaa yimid kadib markii wafdiga Soomaalidu ku qancisay ka qaybgalayaasha shirkan isbeddelka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya ka jira waxayna Soomaaliya noqotay xubinta Afrika u matasha golaha fulinta wuxuuna arrinkani albaabka u furi doonaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya in ay taageero aqooneed iyo mid khibrad ka helaan guddiyada la midka ah ee adduunka ururka oo magaciisa loo gaabiyay ee webe waa urur ay ku bahoobeen in ka badan 106 dowladood iyo 114 hay-adood oo ka shaqeeya doorashooyinka oo ah heer caalami Soomaaliya ayaa noqotay dalka Afrika lagala baxay isla markaasina lagu qiimeeyay in ay iyagu mudan yihiin Afrikana u matalaya ururkan caalamiga ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jawaab adag ka bixisay codsiga dowladda Kenya ay u dirtay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ taasi oo ay ku codsanaysay in dib loo dhigo kiiska badda ee labada dal dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan saydhay codsiga Kenya ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ uga dalbatay in la hakiyo dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya xeer ilaaliyaha guud ee Kenya Paul Kiraye ayaa warqad rasmi ah oo u diray waxa uu codsiga Kenya cudurdaar uga dhigay in Kenya ay doonayso in ay qorto kooxo cusub oo ah qareeno difaaca sidaas darteedna ay u baahan tahay in waqti dheer la siiyo si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa diiday codsiga Kenya waxaana la filayaa in maalinta berrita ah oo ku beegan 5 bisha 9 2019 ay warqad rasmi ah u dirto dowladda Soomaaliya maxkamadda ICJ kuna wargeliso go'aankeeda iyo in ay diyaar u tahay in kiiska uu sii socdo Soomaaliya ayaa ku doodi doonta in haddii Kenya ay doonayso in ay qareeno cusub qorato ay haysatay in ka badan 1 sano oo ay ku samaysan kartay wax kasta oo ay rabto ayna ku qoran kartay qareeno walba oo ay u baahan tahay sidaas darteedna cudurdaarkaas aan imika la aqbali karin dhageysiga dacwadda ayaa waxaa la qorsheeyay in uu dhaco maalmaha Isniinta ilaa Jimcaha ee 9 ilaa 13 bisha Sebtembar go'aan kasta oo dib loogu dhigayo kiiska ama lagu joojinayo waa in ay isku raacaan labada dhinac ee ay maxkamaddu khusayso haddii ay sidaasi dhici weyso oo hal dhinac kaliya uu dalbado sida ay samaysay Kenya waxaa go'aan ka gaari doona maxkamadda ICJ dowladda Kenya ayaa in badan isku dayaysa sidii ay u hakin lahayd kiiskan oo ay ka dhiman tahay 5 maalmood oo kaliya xilligii la dhageysan lahaa lagana go'aan gaari lahaa taas beddelkeeda Soomaaliya ayaa rabta in kiiska sida uu yahay loo galo aanan cidna loo joojin xalay ayay ahayd markii dowladda Kenya ay guddiga golaha midowga Afrika horgeysay in loo codeeyo kiiska Soomaaliya iyo Kenya in la joojiyo iyo in ay socoto oo maxkamaddu ay ka go'aan gaadho iyada oo halkaasi ay ku fashilantay Kenya Afrikana ay u codeysay Soomaaliya xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya oo ka qayb galay shirweynaha ururka guddiga doorashooyinka adduunka oo sanadkan ka dhacay gudaha magaalada Bangalore ee dalka Hindiya ayaa loo doortay xubin ka mid ah guddiga fulinta ee ururkaasi oo ay ku jiraan 106 dal iyo 140 hay-adood warka soo baxay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ayaa lagu faahfaahiyay arrintaasi iyo muhiimadda ay Soomaaliya u leedahay ka mid noqoshada guddigan oo ah guddi heer caalami ah isla markaasina ay ku midaysan yihiin wadamo ka badan 106 iyo 140 hay-adood ayay Soomaaliya heshay xubin guddi fulin ah oo Afrika aysan horay ugu jirin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu ka mid yahay ururo caalami ah iyo kuwa goboleed oo ay ku bahoobeen ururada doorashooyinka kuwaasi oo ay ka mid yihiin ururada guddiyada doorashooyinka Afrika kan Carabta iyo midka adduunka ujeedooyinka ka mid noqoshada ururadan waxaa ugu muhiimsan in guddiga doorashooyinka Soomaaliyeed uu helo khibrad iyo aqoon ku filan oo uu hawshiisa ku qabto iyada oo ururkani ay yihiin madal aqoon wadaaga iyo mid khibrad kororsi sidoo kale wuxuu guddiga arrinkan uga gol leeyahay in codka Soomaaliyeed uu gaarsiiyo daafaha caalamka hay-adaha dawladeed ee Soomaaliyana ay noqdaan kuwa ka dhex muuqda ururadaasi iyo shirkaas caalamiga ah haddaba iyagoo ka duulaya ujeedooyinkaas kor ku xusan ayuu guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo ay hogaaminayso guddoomiyaha guddiga Marwa Xaliima Ismaaciil Ibraahim waxay shirka hay-adaha doorashooyinka adduunka Association of World Election Bodies oo xaruntoodu tahay dalka Kuuriyada Koonfureed uga qayb galeen Bangalore Hindiya
shirkan oo socon doona inta u dhaxaysa labada saddexda iyo September 2019 waxaa kulamo ku yeelan doona golaha guud iyo gudiyada fulinta. Sidoo kale waxaa looga hadlay arrimaha adeegsiga baraha bulshada ee doorashooyinka, caqabadaha iyo fursadaha. waxaa halkaasi bandhig ka soo jeedisay gudoomiye Xaliimo oo muujisay sida Soomaaliya ay uga go'an tahay doorasho cod iyo qof ah dhammaadka sanadkan 2020 isla markaasina soo bandhigtay fursadaha baraha bulshada ee internetka ay ku yeelan doonaan doorashooyinka Soomaaliya ka dhacaya. intii uu shirku socday waxaa Soomaaliya loo doortay in ay noqoto xubin ka mid ah guddiga fulinta ee ururka hay'adaha doorashooyinka adduunka. arrinkan oo ah mid lagu farxo ayaa yimid kadib markii wafdiga Soomaalidu ku qancisay ka qaybgalayaasha shirkan isbeddelka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadeed ee Soomaaliya ka jira, waxayna Soomaaliya noqotay xubinta Afrika u matasha golaha fulinta. wuxuuna arrinkani albaabka u furi doonaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya in ay taageero aqooneed iyo mid khibrad ka helaan guddiyada la midka ah ee adduunka. ururka oo magaciisa loo gaabiyay ee Webe waa urur ay ku bahoobeen in ka badan 106 dowladood iyo 114 hay'adood oo ka shaqeeya doorashooyinka oo ah heer caalami. Soomaaliya ayaa noqotay dalka Afrika lagala baxay isla markaasina lagu qiimeeyay in ay iyagu mudan yihiin Afrikana u matalaya ururkan caalamiga ah. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa jawaab adag ka bixisay codsiga dowladda Kenya ay u dirtay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ, taasi oo ay ku codsanaysay in dib loo dhigo kiiska badda ee labada dal. dowladda Soomaaliya ayaa ku gacan saydhay codsiga Kenya ay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ uga dalbatay in la hakiyo dhageysiga dacwadda badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. xeer ilaaliyaha guud ee Kenya Paul Kiraye ayaa warqad rasmi ah oo uu u diray waxa uu codsiga Kenya cudurdaar uga dhigay in Kenya ay doonayso in ay qorto kooxo cusub oo ah qareeno difaaca, sidaas darteedna ay u baahan tahay in waqti dheer la siiyo. si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa diiday codsiga Kenya, waxaana la filayaa in maalinta berrita ah oo ku beegan 5 bisha 9 2019 ay warqad rasmi ah u dirto dowladda Soomaaliya maxkamadda ICJ kuna wargeliso go'aankeeda iyo in ay diyaar u tahay in kiiska uu sii socdo. Soomaaliya ayaa ku doodi doonta in haddii Kenya ay doonayso in ay qareeno cusub qorato ay haysatay in ka badan 1 sano oo ay ku samaysan kartay wax kasta oo ay rabto ayna ku qoran kartay qareeno walba oo ay u baahan tahay. sidaas darteedna cudurdaarkaas aan imika la aqbali karin. dhageysiga dacwadda ayaa waxaa la qorsheeyay in uu dhaco maalmaha Isniinta ilaa Jimcaha ee 9 ilaa 13 bisha September. go'aan kasta oo dib loogu dhigayo kiiska ama lagu joojinayo waa in ay isku raacaan labada dhinac ee ay maxkamaddu khusayso. haddii ay sidaasi dhici weyso oo hal dhinac kaliya uu dalbado sida ay samaysay Kenya, waxaa go'aan ka gaari doona maxkamadda ICJ. dowladda Kenya ayaa in badan isku dayaysa sidii ay u hakin lahayd kiiskan oo ay ka dhiman tahay 5 maalmood oo kaliya xilligii la dhageysan lahaa lagana go'aan gaari lahaa. taas beddelkeeda Soomaaliya ayaa rabta in kiiska sida uu yahay loo galo aanan cidna loo joojin. xalay ayay ahayd markii dowladda Kenya ay guddiga golaha midowga Afrika horgeysay in loo codeeyo kiiska Soomaaliya iyo Kenya in la joojiyo iyo in ay socoto oo maxkamaddu ay ka go'aan gaadho, iyada oo halkaasi ay ku fashilantay Kenya, Afrikana ay u codeysay Soomaaliya.